السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمد الصومالية ميلو بجوغا وحلينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حنينكم سلامنا سلامة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كانوا حيثنكم سوق بيننا قصة عجيبة كلي خصوصا ما دونينو mana noola ogolaanin in aan sheegno ama qofka meesha uu ku nool yahay aan sheegno nalama ogolaan laakiin waxarna qisadaas ay u dhacday iyo halka ay qaabka ay u dhacday in aan kaga sheekeyno wiil iyo gabar walaalo ah oo hal guri ku wada nool ayaa waxaa dhacmartay qiso cajiib runtii wiilku wuxuu ahaa wiil aad iyo aad u xanaaq badan mar walba iska xanaaqa runtii qofka bini'aadanka wax walba way ka suurowaan markuu careysan yahay shaydaankana wuxuu mar walba uu garab galayaa ama uu macaaneynayaa inuu wax ficil xun ku dhaqaaqo wiil iyo gabar walaalo ah oo mar walba istagaala isku dhaca dhibaato fara badan mar walba isku geysta ayaa waxay gaartay caradooda iyo dhibaatadooda meel aad iyo aad u sareysa runtii wiilka mar walba wuxuu jeclaa ama uu ku farxi jiray inuu gabadha dhibaato u geysto gabadhana sidoo kale mar walba waxay ku farxi jirtay in wiilka dhibaato u geysto maxaa dhacay markaa runtii wiilka iyo gabadha waa dad da'yar bay ahaayeen waxay ka soo bilaabatay colaatankooda ama dhibaatadooda waxay ka soo bilaabatay da'yaradooda markay jireen 7 sano ay naceebku isku qaadeen runtii waalidkana mar walba wuxuu sameyn jiray mar walba midkii khalad gala ama khalad dusha laga saaray ayuu garaaci jiray midka kalena waqti nafsi iyo dhibaato ayuu sii qaadan jiray waayo garaacistaas la garaacayo waxay keeni jirtay inuu uqdad ka sii qaado ama dhibaato uu ka sii qaado uu u haysto qofkan inuu yahay cadowgiisa marka cadownimadoodii way soo kortay way la kortay da'dooda iyo cadow xaasidnimada isku qabaan way sii barbaari jirtay marka waxaa dhacday dadkan waxay gaareen xilli qaangaara oo dad waaweyn ah markaan aniga waalidiinta waxay islaayeen dadka markay weynaadaan way yaraan doontaa cadownimadooda iyo xaasidnimada iyo barbareemka isku wadaan markay da' noqdaan markaan oo dad qaangaar noqdaan waxay noqon doonaan islaayeen dad walaalo isjecel balse laakiin xaasidnimada si jirkooda u koray iyo isku koraysay oo mar walba ila barbaarisay marka waxaa dhacday wiilkii gabadha waxay ku sameysay saaxiibadiisa gaarka ah oo dunida ugu jeclaa ay ku dirtay xiriirkooda ay burburisay dhibaato fara badan ay ka dhaxdhalisay gabadhii iyo walaalkeeda way kala go'een runtii aad ay ugu farxday aad ay ugu dabaaldegtay runtii waalidiintana way ka xanaaqeen way ka canaanteen laakiin iyada uma joojin mar walba waxay ku xisaabtamaysay inay ninkan ka guulaysatay oo saaxiibadiis ay ka jartay ninkan walaalnimada ma fiirin wuxuu qaatay go'aan shaydaaniya wuxuu qaatay go'aan aad iyo aad u foolxun runtii adigana ma qaadan lahayn saan filayo cid qaadan lahaydna way yar tahay inkastoo shaydaanka wax badan uu kugu hogaaminayo ninkan wuxuu qaatay go'aan cajiib go'aankaas waa maxay wuxuu tagay saaxiibadiisa wuxuu weydiistay talo suu walaashiisa uga aarsan lahaa wuxuu dhahay walaasheeda waxay iga goysay saaxiibadeyda aan dunida ugu jeclaa wax aan ku sameeyno waan garan la'ahay inuu asxaabay ila taliya runtii asxaabta qaarkood waa asxaab fiican waxay kugula talinaysaa wanaag asxaabta qaarkoodna waxay kugula talinaysaa ficil aad iyo aad u xun marka wiilkan waxay kugula taliyeen qaarkood inta ugu badan inuu gabadhan ka argato uu iqaabteeda marsiiyo uu walaalnimada meel iska dhigo inta ugu yarna waxay dhaheen waa walaashaada iska daa waayo walaashaada waa haddaad dhibaato u geysato dhib adiga ku dhibaya laakiin asiga wuxuu go'aan ku gaaray inuu ka argato inta kula talisay inuu iska daayana wuxuu arkay inay yihiin dad iyada la safan oo cadowgiisa ah go'aankaas runtii aad ay u qaldanaa waayo walaashaada hadday qaldan tahay hadday saxan tahay waa walaashaada inaad system kale iyo qaabab kale wax ugu dhaadhiciso ayaad heli kartaa ama waxaad heli kartaa inaad adiga isjeclaysiiso qofka bini'aadanka adiga ayaa isjeclaysiin kara adiga ayaa wax walba ku samayn kara adiga ayaa iska fogeyn kara marka waxaa dhacday gabadhii ayuu wuxuu go'aan ku gaaray in uu ka arguto waliba si xun ugu arguto ayuu go'aan ku gaaray
asxaabtii kula talinaysay inuu gabadha ka aarguto ayuu dhahay waxaan rabaa gabadhaas in aad kufsataan oo aad jirdishaan haddii ay noqotaan aad kow kaga siisaan inna lillahi wa qof walaashiisa isku hooyo isku aaba yihiin oo asxaabtiisa ku soo dirayo inay kufsadaan haddii u suuro gasho ama khaylkhaylaysan ay kow ka siiyaan ka waran runtii asxaabta awalba asxaab xun bay ahayd qaarkeed waxay go'aan ku gaareen ficilkaas in ay sameeyaan weliba mid maskax badan ayaa ku jira asxaabta wiilku wuxuu ka qabtay muuqaal ayuu ka duubay markii uu mishiinkaas u diraya ama la talintaas uu sameynaya in walaashiis kufsadaan hadday iswaashana ay dilaan waa mishiin asiga uu ka duubay cod ayuu ka qabtay muuqaal ayuu ka duubay runtii wuxuu ahaa gaangeyster xaasid ah labada walaalna inuu isku baabi'iyo raba dhibaato fara badan inuu ka dhaliyo raba dhexdeeda runtii qorshahaas uu u hirgelay codkii wuu ka qabtay muuqaalkiina uu ku duubay ninkan laakiin war uma hayo wuxuu isleeyahay asxaabtaada waa asxaabtaada laakiin asxaabta qaarkood la talintooda aad ay u dhibaato badan tahay wuxuuna u sheegay in habeenkii ay soo daahdo oo asxaabteeda ay la soo cawayso ay soo baxdo kooda habeennimo ama labada habeennimo ama 7 saac saa u taqaanid inay gaariga keligeeda ku soo baxdo gaarigeeda soo kaxaysato oo waddada ay soo maraysan uu u sheegay runtii habeenka ugu horeyso waddada ay soo marayso uu sheegay isku diyaariyeen laakiin waa nasiib wanaag habeenkaas waddadaas way soo marayso waddo kale ay xaafadda ka soo gashay iyadoo xaafadda joogta markuu arkay wuu wacay asxaabtiisa wuxuu dhahay maxay tahay mishiinkan aad fulinin gabadha iyadoo caafimaad qabto habiya caadi ay guriga timaado waxay dhahay marka anaga waddada noo sheegto waan taagannahay ee gabadha iyadaan soo maray marka nasiib wanaag caaw way badbaaday ordaha iska aada xaafadihiina markii habeen dambe ayaan ka dhiganayna mishiinkii runtii mishiinkii habeenkii dambe ayaa laisku yimaaday waddadii ayaa sidoo kale loo istaagay ninkan go'aan iyo fikir uu dib u jeclaysi walaalnimo marna kuma soo dhacayso maskaxdiisa ilaa ay hadda waxaa ku jirta xaasinimadii walaashiisa ugu qabay laakiin habeenkii dambe waxaa dhacday gabadhii sidii oo kale waxay ahayd gabar caado ka dhigatay inay soo daahdo oo habi iska ah in lagu soo maqayaan aan war ka haynin nasiib daro habeenkii waddadii ayay soo martay mid ayaa waxaa iska dhigay asxaabta nin dhibaataysan oo kale wuxuu ka codsaday inay caawiso uu istaajiyey gaarigii markay ka soo degatay kuwii kale ay dib kaga yimaadeen gabadhii afka laga qabtay isla gaarigeeda ayaa lagu qaaday waxaa la geeyey koonaha magaalada wixii uu ninkan sheegay wax ka sii xun ay ku sameeyeen ugu dambeyn way dileen iyadii gaarigeeda waxay ku tuureen meel ka mid ah oo biimareena ama waadiya oo magaalada koonaheeda ku yaallay meesha ay ku kufsanayeen ka dhawaa ay iyadii gaarigeeda ku tuureen ninkan asxaabtii ayuu wacay lambarada lama heli kara ayuu noqotay habeenkii oo dhan ayuu sugay walaashiisa maysan soo noqon runtii aad iyo aad ayuu ugu farxay waa nin ka dhex guuxay shaydaan ama program xun ka dhex guuxay waayo walaashiisa in la dhibaatay ayuu ku farxay runtii hooyada markii habeenkii soo noqon weysay gabadhii ay asxaabteeda wacday waxay ku dhahday gabadhayda ma idinla joogtaa waxay dhaheen xalay xilligay naga soo tagi jirtay ay naga soo tagtay marka nalama joogto hooyadii walwal iyo walaac ayaa ku dhashay maalintii oo dhan ay sii sugtay waxay isleedahay meel kale amay ku maqan tahay ugu dambeyn way dul qaadan weysay waxayna garaacday booliska markay garaacday waxay dhahday gabadheeda ayaa maqan xalay oo dhan nooma imaan maanta oo dhanna nooma imaan teleefoonkeeduna wuu dinsan yahay marka waxaan doonaynaa gabadheeda inaad noo baartaan aad noo soo ogaataan waxay dhaheen sawirkeeda noo soo dir anaga ayaa baarayno ugu dambeyn anaga ayaa soo saarayno meel ay ku dambayso sawirkii ay u dirtay lambarkii ay u dirtay oo gabadha ay sidatay laakiin wiilasha gabadha kufsanaya waxay ahaayeen mid ka mid ayaa ahaa mid maskax badan hore idinku sheegay midkii walaalkeeda muuqaalka ka duway ee isla teleefoonkeeda meesha ka soo qaaday si aan systemkiisa loo raacin gaari gobol kale u socdo ayuu si maskixiyan ah gaariyaasha oo qaada culeysyada qaada ama alaabaha culus qaada ayuu dhabarka u geliyey si uu ula fogaado hadhowtiina raadraac haddii la yeelanayna asiga dib loo raaco aan magaalada gudihiisa aan lagu mashquulin wuxuu nin maskax badan aad iyo aad u maskax badan u ahaa
runtii booliiskii waxay dibaraaceen lambarkii systemka wuxuu u sheegay in magaalo kale ama gobol kale uu lambarkaas uu dhex yaalo ay soo sheegeen waalidiinta ay soo waceen waxay dhaheen waxaan raacaynaa systemkii mobilkeeda gabadha gobol kale ayuu yaalaa lambarkii marka annaga ayaan soo gudbinayno xog ah annaga naga warsuga waa inoo qaybta labaad. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.